Haya warbixin ku saabsan dadka ugu followers-ka badan ee isticmaalada aaladda TikTok ee adduunka oo dhan. Aaladda TikTok sida in badan oo idin kamid ah ay la socdaan waxa laga leeyahay dalka China waxaana laga isticmaalaa daafaha adduunka intooda badan. Waxaa jira dad horumar la taaban kara ka sameeyay ama caan ka noqday aaladdan isticmaalkeeda. Qofka ugu horeeya ee kaalinta koobaad galay waxa uu noqon doonaa aaladda TikTok Qaabay oo u dhashay dalka Senegal waxaana uu ku nool yahay Qaabay dalka Talyaaniga. Bishii June ee sanadkan 2020 ayaa waxa uu noqday qofka ugu sareeya ama ugu followers-ka badan TikTok. Hantidiisa waxa lagu qiyaasaa Qaabay inuu yahay 13 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Kaalinta labaad waxa soo galaysa gabar u dhalatay dalka Mareykanka waxaana lagu magacaabaa Charli D'Amelio. Gabadhan waxa ay ku jirtaa kaalinta labaad ee dadka ugu followers-ka badan aaladdan TikTok ee adduunka oo dhan laga isticmaalo. Gabadhan waxa ay dhigan jirtay iskuul lagu barto qoobka ciyaarka oo ay caan ku noqotay. Gabadhan hantideeda waxa lagu qiyaasaa inay tahay 20 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Aaladda Facebook dabcan waxa laga leeyahay dalka Mareykanka balse lagama isticmaalo dalka China. taa beddelkeeda aaladda TikTok oo laga leeyahay China ayaa dadka ugu sareeya waxa ay u badan yihiin Mareykanka. Kaalinta saddexaad ee dadka ugu followers-ka badan ee ugu caansan aaladda TikTok waxa soo galaya Bella Thrash waa gabar Philippines ah oo u dhalatay dalka Mareykanka ama haysata dhalasho dalka Mareykanka ah balse asalkeedu uu yahay Philippines. Gabadhan sidoo kale waa heesaa caan ah mar kala duwan ay soo noqotay kalkaaliso waxaana ay sida la sheegay la shaqeyn jirtay ciidamada dalka Mareykanka. Inkastoo laga followers badan yahay hadana waxa ay haystaa muuqaalka ugu loofka badan ee aaladda TikTok. Waxa lagu qiyaasaa gabadhan hantideeda 13 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Addison Rae waxa ay soo galaysaa kaalinta afraad ee dadka TikTok ugu followers-ka badan. Gabadhan waxa ay ka qayb gali jirtay tartamada qoobka ciyaarka ilaa iyo markii ay jirtay 6 sano. 88 milyan oo follow ay haysataa ama 88 milyan oo qof ayaa ku xiran oo daafaha adduunka kala jooga. Gabadhan waxa kale oo ay haysataa hanti gaaraysa 15 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Will Smith waxa uu soo galayaa kaalinta shanaad ee dadka ugu followers-ka badan ee aaladda TikTok. 72 milyan oo qof ayaa ku xiran oo markaasi bartiis TikTok soo follow gareeyay. Waa ninka ugu mushaarka badan ee Bollywood iyo Hollywood. hantidiisana waxa lagu qiyaasaa 350 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Waxaan filayaa inaad ka bogateen muuqaalkan. Haddaba daawada adiga yaad isleedahay Soomaalida oo ugu caansan yahay aaladda TikTok ama waa ugu followers badan yahay. Waad la wadaagi kartaa aragtidaada waad ku mahadsan tahay. لا اوكي اوكي موبايل كلام كودي كده سما ترافيك انا نمدي نو ترافيك ku sameeyna marka maanta markii muuqaal la keeno kala fikrad ah keeno ama wiil kale oo keeno mawado waxay ka qayb qaadataa jiliinka ayada qaar marka qaar anaga sameeyayno waxay ku soo dartaa hadal aan ku qosolno oo shactara ah markii saas dhacdo kale fiidiyowga uu soo baxaa gabadha horta da'deeda waa 9 jir waaye dadka qaar waxay u maleeyaan in ay wax baranin laakiin waxbarashadeeda ma ka kaftanto ciyaalka qaar waa loo kiciyaa waxbarashada laakiin ayada kiskad u kacdo wiligay aan hadda waa ka weenahay guriga la joogaa inaan soo baxdahay dugsi aad ama iskuul aad ma dhihin ayada kacdo ayada iskuulkeeda aad waxbarashada ayada aado ma sha Allah iskuulka waxbarashada
haddii maamulkeeda iyo macalimiinteeda la weydiiyeyna waxaa waaye waxbarashadeeda toob waaye dhanka waxbarashada way ku fiican tahay da-deedana waa 9 jir marka tiktokana waxay soo gashay 2019 haddana waxaa waaye 1 milyan insha allah ay gaari doontaa tiktok dhanka tiktok ayada tiktok oo keliya ma laha ciwaano badan ay leedahay oo youtube oo kale facebook page oo kale meelo badan ay leedahay oo dad badan ay ku xiran yihiin hooyo aaba maxay dhahaan oo kale markii ay saan oo kale ay dhac qabtay aaba ma joogaa horta